xaalad cusub ayaa ka qaraxday badda cas markabyo shidaal oo Sacuudi ayaa lagu soo warmay inay bartilmaameed noqdeen. ururka Xuutina wuxuu sheegay inuu bilaabay xayiraadda dhanka maraakiibta ah oo ka dhan ah maraakiibta xiriirka la leh Sacuudiga. The Saudi government insists it will take all necessary. laakiin su'aasha weyn waxay tahay matani waxay noqon doontaa bilowga dagaal ka ballaaran gobolka. Mareykanka muxuu samayn doonaa? Donald Trump muxuu uga digay Xuutiyiinta iyo maxay tani uga dhigan tahay ganacsiga caalamka? نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر. Ships loading or discharging cargo. Assalaamu calaykum dhammaan ku soo dhawaada channelka. Anigoo Amiirka Wara muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa xaaladii ugu dambeysay ee ka taagan badda cad, halkaas oo xiisad cusub ay ka dhalatay kadib markii Xuutiyiintu sheegay inay weerareen maraakiib shidaal oo Sacuudi ah, iyadoo ku andacoonaya inay jabiyeen xayiraaddii ay ku dhawaaqeen. dhanka kale Mareykanka ayaa digniin adag soo saaray iyadoo Trump uu sheegay in tallaabo laga qaadi karo haddii weerarada sii socdaan. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना अज़्म दोहरा दिया। वज़ीर आज़म ने बहर अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के हमलों की qaybta koowaad maxaa ka dhacay badda cas? badda cas waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ganacsiga caalamka. malaayiin fuusto oo shidaal ah iyo badeecooyin badan ayaa sanad kasta mara maranbiyoodkan, laakiin maalmahan waxaa soo kordhay cabsi cusub. Xuutiyiinta Yemen ayaa ku dhawaaqay tallaabo ay ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta la xiriirta Sacuudiga. kadib waxay sheegeen inay weerareen 2 markab shidaal oo Sacuudi ah oo lagu kala magacaabo Inzila iyo Layla. warbixinaha qaar waxay sheegayaan daawada in weeraradu sababeen dab, inkastoo faahfaahin qaar weli la baarayo. qaybta labaad, maxay maraakiibta sameynayaan marka khatar amni ay ka jirto marinbiyood muhiim ah? shirkadaha maraakiibta waxay bilaabaan inay bedelaan qorshahooda. qaar ka mid ah maraakiibta ayaa dib u eegaya safaradooda, halka qarashka caymiska maraakiibta uu kordhay. sababta ayaa ah in shirkadaha ay ka baqayaan weeraro cusub ama dib u dhac ku yimaada safarada. badda cas ma ahan oo keliya meel dagaal ka jiro, waa waddo dhaqaale oo isku xirta Aasiya, Afrika iyo Yurub. The Red Sea is a vital arterial route for international energy shipments and maritime trade. If commercial vessels are forced around Africa, shipping qaybta saddexaad, jawaabta Trump. dhanka kale Mareykanka arrintan waxaa si dhow ula socday maamulka Trump ayaa digniin u diray Xuutiyiinta isagoo sheegay in haddii weerarada sii socdaan ay jiri karto jawaab militari oo culus. Mareykanka ayaa sidoo kale Iiraan ku eedeeyay inay taageerto Xuutiyiinta, taasoo sii kordhisay xiisadda gobolka. laakiin su'aasha taagan ayaa ah, jawaab militari ma dejin kartaa xaaladda mise way sii horin kartaa dagaal cusub? qaybta afraad, maxay Sacuudiga samayn kartaa? Sacuudiga wuxuu wajahayaa xaalad adag. dhanka kale wuxuu doonayaa inuu ilaashado amniga maraakiibta iyo ganacsigiisa. dhanka kale wuxuu ka taxadarayaa in xiisadda aysan isku bedelin dagaal ballaaran oo gobolka saameeya. badda cas iyo Baab al-Mandab waa meel istiraatiiji ah. qof kasta oo saameyn ku yeesha halkaas wuxuu saameyn karaa dhaqaalaha caalamka. qaybta shanaad, maxaa dhici kara maalmaha soo socda? waxaa jira dhowr xaaladood oo suuragal ah. midka koowaad, in weeraradu sii socdaan, taasoo keeni karta in dalal badan ku lug yeeshaan. in cadaadis diblomaasiyadeed la saaro dhinacyada si xiisadda loo yareeyo. midda saddexaad, in maraakiib badan ay ka fogaadaan badda cas, taasoo kordhin karta qarashka ganacsiga. xaaladda badda cas waxay mar kale muujinaysaa sida hal meel oo yar ay saameyn ugu yeelan karto dunida oo dhan. maalmaha soo socda ayaa go'aamin doona in tani noqoto xiisad kooban ama ay isku beddesho dagaal ballaaran. adiga maxaad u malaynaysaa? miyaad aaminsan tahay in xaaladdan lagu xallin karo wadahadal mise dagaal ayaa sii fidi doona? fikirkaaga ku qor qaybta faallooyinka. haddii aad jeceshahay wararka iyo falanqaynta qotada dheer, subscribe saar channelka. anigoo Amiirka Waar, waxaan idin leeyahay sida ay nabadgeliyo. alliheenni abuure ka baqa oo ka cabsada. inna zalzalata saacati shay'un cadiim. saacadda gariirkeegu waa shay weyn baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala. waa saacadda qiyaamada. yowma tadhalu kula murdicatin cama ardacat wa tadacu kulu daati xamlin xamlaha
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بإلهي تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم ضدوا اللهين أبو كبق إلهي كعبسو وإن إلهي كعبسون وحالا قرتا مركات كليغا ميل أد جوجتو dadka dhexdooda ilaahay inaad kaga cabsataa way fududahay laakiin kaliya markaad meel aad joogto ilaahay inaad ka cabsataa taasa adag maxaa yeelay qofka muuminka taqwada leh waxa la gartaa khalwadiisa markuu kaligi yahay ayaa la gartaa sidoo ilaahay uga baqayo saacada qiyaamada soo socoto quraanka ka waramo la yiri dhulkoo dhan baa gariiri oo malaa'ig baa ilaahay soo saari doona Israafiil suurto afuufaya makhluuqaadka samaawaadka ku nool ee araadiinta intaasoo dhan dhammaan way wada dhiman way wada argagaxayaan waa maalinta tii ilmaha naaska nuujinaysay ilmaheega maarataane way tuuri doontaa way halmaami doontaa dadka ayaa wada dhacdhacaya baa ilaahay yidhi waxaa loo malaynayaa sakaaro inay yihiin sida kuwa sakraansan ay la dhacdhacaan bay la dhacdhacayaan sakrad maaha waxay la dhacdhacayaan baa ilaahay yidhi cadaabka ilaahay baa daran baa leeyahay cadaabka ilaahay baa daran maalinkaas